ayadoo maanta ku beegnad 21 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka aroornimadii hore waxay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gadka ciyaar iyo dowlatus military ku soo bandhigeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kadib markii ay soo gabagabeen gadka ciyaarkaas iyo dowlatuskaasi military ee sameeyeen ciidamadu ayaa waxa halkaas ka hadlay banduulaha qaybta 12aad ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Kayd Cismaan Maxamuud oo ka warbixiyay ciidamada qaranka Soomaaliland isla kana kula dardaarmay ciidanka inay halkaasi ka sii wada dardargelinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland in nabadgelyada ay nasiyay halka aynu ku wada joogno ayaa mahadnaq leh waxa aan u dirayaa hambaliyo iyo salaan maanta ay taariikhdu tahay 2 bishii 2 February sanad guuradii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aasaaskiisii dhammaan ciidanka qaranku meel kasta oo joogo ee uu hogaaminayo taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaasaskooda meel kasta oo ay joogaan waxaan u dirayaa salaan iyo hambaliyo kaliya laaba waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan ilaahay hawlaha aynu hayno in qarannimada u hayno inagu guuleeyo sanadkiisa iyo kuwa kale ka sii dambeeyana ilaahay nabadgelyo inagu gaarsiiyo geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlaa banduulaha aaga bariya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Abakar iyo mujaahid gaashaale sare Jaamac Digaale Ducaale taliyaha qaybta bilayska gobolka Togdheer Cabdi Muuse Cabdilaahi iyo duqa golaha deegaanka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo dhamaantoodba si isku mid ah u hambaliyay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kaliya inaan nahay haday tahay gobolka haday tahay degmada haday tahay isku duwayaasha ciidanka qaranku gooni uma istaagan ma yiraahdo anagu difaac baan ku agnaa si walba ay nagala shaqeeyaan amniga taasina guul bay inta iyo waxay inta wanaag waxaan kaloo ka salaamayaa baxda saxaafadda oo iyaguna qaybtooda ka qaata arrimaha ciidanku kulli iyagu ma siyaasad ma galaan waxa weey ciidanka qaranku waa ciidankii dawladda 25 sano oo ka hor oo kale marka dib u rikool gareyso wixii maalinta jiray iyo maanta waxa jira marka soo eegto qofkii aqliga lahaa wuxuu suranayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadiisa iyo shukrigiisa mid la koobi karay ma halka aynu mareen ciidanka qaranka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waanu hambaliyeenayaa waa Maxamed Cali Ahmed Kaabe wararka telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Burco.